kamid ahaa qorigan AK-47 loo yaqaano kaasi oo inta badan la isticmaalo xaaladaha gaarka laguna yaqaan armihiisu ku isticmaalaan kaasina gacanta noo soo galay ugu dambeyntii goorma la oran karaa wuxuu gacanta idin soo galay hubkiino ama uu idin soo gaadhay bishu markay ahayd wallahi ma qiyaasi karo laakiin adoo isku dayaya qiyaas ama su'aashan si kale kugu dhigo goorma gacantiina kusoo ururay hubku bishii koytanaad ee 1999 bishii koytanaad kusoo ururay marka waxa uu soo gaaray Dooxa isagoo lagu wado containero kaasi oo kasoo galay dhanka Bahrain oo naga soo laabay boondada dhaxaysa Bahrain iyo dalka Qatar halkaas ugu dambeyntii ku soo gaaray marka hubku qaybo kala duwan buu ahaa noocyo kala duwan buu ahaa oo dhinacyo fara badan leh شاهين مسليطي وحاوها ميد كاميدا هوغامياشا وكالتا سردون كايدا القطر كاسي او اها ان لو حلسارين وكقيب قاطو لا تقالان كوحدان انقلاب كودي وحانوها ميد كاميدا رقي حقيقيي ميد كاميدا عسكرة الدلك السعودية عربية اساقو اوكا عن تقصور ديو قدام بينتين حبسي اساقو قاطي قدها الدلك قطر كاسي اوها شخصي سوق قريني الدلك قطر هوكا كالدوان ايه لغا سوق قريني دنكا بحرين وبران اليامي هذا أحد المتهمين dhabahaantii way jirtaa arrintaasi waxaan ahaa ninka qayb qaadanaya arrimahaasi la dagaalanka inqilaabka ninkan gacanta kusoo dhignay nin Sacuudi ahaa oo dalka Saudi Arabia u dhashay waxaana ka tirsanaa ciidamada dalka Saudi Arabia militariga waxaana ahaa nin ku takhasusay arrimahan iyo sida qarsoodiga wax loo soo geliyo dalka Qatarna dhowr jeer buu soo galay markaan arrintan la soo gudbiyay dabagal fara badan baan sameeyay xog raadin fara badan iyo baaritaano aan sameeyay waxay suurta gashay markaan helo ciwaanadiisa iyo ninkan iyo magaceeda isticmaalo dhabahaantina waxaan gudaha dalka Qatar markaynu eegno waxa joogay saraakiil arrimahan la dagaalamay waxa kamid ahaa ninkan Cali loo yaqaano مدن علي مركنا أرنتا إنه واحد جرتي سوق على سوق على ذلك مصر كاسي أو سوق على جدها دوحة عاصمة قطر أرنتا محا كجري أماد نقشي كرتا طبعا تي وجرتي أرنتاسي وأنا أرنا نكشقين نيستي لو جهرت لها هو كان مصر بالهاي وحكم إذا قريها وحلو الدقيو يسوق على حبذه iyo hubkii ay isticmaal lahaayeen dhammaan nimanka inqilaabka wada si ay u khalkhalgeliyaan shacabka reer Qatar ku sugan nabadda iyo xasiloonida dhammaadkii 1995 waxa Sheekh Khalifa bin Hamad al-Thani uu ka guuray magaalada Rome ee caasimadda dalka Talyaaniga isagoo u guuray caasimadda Imaaraadka Abu Dhabi sidoo halkaasi uga hago hawlihiisa isla mar ahaantaasina uga qayb qaato arrimahan inqilaabka dhabaantii way jirtay sheekhuna halkaas uu soo wareegay waxaana kula taliyay Sheekh Said oo ahaa hogaamiyihii Imaaraadka waqtigaasi isagoo ku adkeeyay inuu ka soo guuro dalka Talyaaniga ama caasimadda Roma waxaana uu sheegay in uu Imaaraadku uga fudud yahay oo ay wax kasta la qaban karayaan waana jirtay oo in badan bay halka kulmeen laakiin ugu dambeyntii go'aansadeen inay halka ka soo raraan waana ku tirtirsiyeen oo in badan ay ku adkeeyeen malaha u soo wareego ugu dambeyntii uu soo wareegay corona yeesheen waxa uu sheegay Sheekh Said Sheekh Khalifa inuu wixii u baada ka caawinayo xataa hubka iyagoo aan odhanin noocan idin helayno laakiin uu sheegay nooc kasta ay u baahan yihiin inay siinayaan hadda waa nooc kasta u baahan yihiin iyagoo siinaya oo ku garab istaagaya wixii hubay ay u baahan yihiin iyo wixii tasiilaadka dalka Imaaraadka looga baahan yahay isla mar ahaantaasina ay ka mid yihiin baabuurta loo yaqaano qoryaha loo yaqaano forte oo kaasi dhuuntiisu ay tahay ilaa 40 millimeter waxaa jirtay sidoo kale ka soo galayeen dalka Bahrain gudihiisa aduu waxaad leedahay waxay ka soo galayeen gudaha Bahrain iyagoo soo talaabiyay xagga Qatar ها دنك بحرين ويكسو قليين وانا جرتيو دا بريج باو دحيي بحرين يا قدر بريج كاسي كسو تلابيين بابور كديون قشان بقرتويدا بحرين وحكومته ليدهاي
ayaa soo gelayay isla mar ahaantaasina soo gudbinayay hubka oo ka qayb qaadanayay sidii hubka loo soo xarayn lahaa ee ay u soo geli lahaayeen gudaha dalka Qatar. soo degitaankii sheekh khaliifa ee dalka imaaraadka carabta waxay dhab ahaantii arrin aan nagu ku farxnay anu shakhsiyan waqtiga halkaasaan joogay waana jirtayo dee faa'iido noo ahayd oo markastoo nala kulmi karin hadday howlo kadiis nagu soo baxaan isla mar ahaantaasina waxuu naga qayb qaadan karay wixii diyaar garayn iyo dee howla naga baahano maadaamuu isagoo odayga noogu weyn yahay arrintan horkacaya taas marka anaga faa'iido noo keentay mooye wax khasaara uma aragno faa'iido fara badanna waqtigaa dee dalka imaaraadku uu noo galayo anagu waxaan u arkaynay inuu dal wax noo faa'iideeyey. qabashada camiid khiid marsuuq cabdallah waxay ahayd mid dhibaato ku keentay isku xidhkii hoggaanka Qatar nimankii ka fulin lahaa inqilaabka isagoo ahaa raggii ugu adadka. taasi waxa ay sii xumaysay arrintii isla mar ahaantaasina waxa gacanta lagu dhigay wax yar kadib Fahad al-Maliki kaasi oo ahaa ninka u qaabilsan dhanka sirdoonka kooxda inqilaabkani fulinaysay. waxaana ay noqotay in la qabto bishii January ee 1996 وارنا نمركي لي قبتي إن بدن باليسكودي إن حق ليجا هلا لكن ويسكت جلي ويدي وحلا يصابون دقين مقرنا سايي أن كم النقطة حبنا هات وهالجميع قطر وحلا يقول ترسيول يقول إن ممكن وان من ذلك حماينية وان من ذلك خريبية وان من دبوكي سنة ذكر القدر وان من كسور جد حار من القدر إننا نشعل أنا ما أقول حبنا لكن وان كوغلان واي إن وانا يعنتم ويدي waayo hawl baan intaas oo dhan ku soo jiray markii dambe waxa la isku dayay marka maalinta qof baa la kulmi jiray kamid ah xubnaha sirdoonka iyo nimanka dambaarista waan inta badan ka goos adeeg inaan wax xooga siiyo in badan bay isku dayeen inay taa qaadaan waxa qalbigayga ku jira laakiin ma suurtagelin oo waan ka adkaystay waxa noqotay mid faa'iido keentay dalka Qatar iyo xubnahayagii inqilaabkoodii way haddii sheegi lahaa waxa gacan geli lahaa dad tiro badan oo ku dhow 107 qof haddaan ka badnaynba waxa la igu yiri arrinta waxa ka qayb qaata Sacuudiga, Imaaraadka, Bahrayn, Masar maxaad ka ogtahay anigu waxaan ku yiri wax xidhiidh oo leeyahay ma jirto hawshan waxaan kaga jirana ma jirto waxa la igu kale wax wada hadashaan Sheekh Khalifa goonan dafiray arrinta qudeeda waxaan hawl ku leeyahay amaan gacan ka siiya ma jirto waa hawl aad idinku anigu tuunteen oo kaliya ama shaqada iga qabtaan taasna waxay keentay markaa in ugu dambeyntii faraha laga qaado oo wax laga qaadi kari waayo oo de mar haddii xog laga heli waayo sideedaba eedayn kaliya lagu soo eedayn karaa laakiin wax xukuma ku dhacaya ma jirto dhab ahaantiina qabashada ninkaas dib bay noo keentay anaga marka laga xaqeega way jirtay ninkan Fahad oo kale markii la qabtay waxaan ahaynaa xubnaha ugu xooggan sirdoonka markii aanu qabanay waxaan isku daynay badan xog ka helno laakiin waan ka goos adeegay oo wax xog oo siin waayay waana noo furtay weyday in ma garanaysaayay madana baarik adiga maxaa ka taqaanay Fahad al-Maliki shakhsiyan anigu waan aqaanay dhawaantii si kala aan ku dhigo maxaad ka taqaanay yani arrimihii fulin jiray iyo qayb ka ahaa hawshani dhawaantii anigu waan aqaanay ninkani Fahad la yiraahdo waxaana waa shakhsiyadka ku cadcad fulinta marka loo eego dhanka inqilaabka sirtoonkana uu jiray wakaalada sirtoonka ee wuxuu ahaa hawshan inqilaabka fulinaysa dhawaantiina hawl waxay ahayd aad u dhib badan oo uu ka qayb qaadanayay isagu laakiin waxa uu ahaa ninaan aqaanay ka hor inqilaabka iyo kadib fulintiisiiba diyaargarow fara badan oo la sameeyay dowladihii ka qayb qaadanayay inqilaabka iyo shakhsiyaadkii inqilaabkani waday ee ku sugnaa gudaha Qatar iyo dibaddaba waxa la isku raacay in la fuliyo hawshan inqilaabka saacad marka ay tahay 0ga saacad صفر يا حددي أما صيا يقامي إن حلقة لفليو تاريخ محيط مركز وجد الله إن طبعا تي وحي دارينا هايدنا نوفلينو إن عيد في هايد مركز عيد الفطر ده هدمية عيد الفطر ده هيدا عيد ما نقول ما حد يدير جروبي ناس كتير يوم ملتري جوبا إن أي كلام قاطن عيد الفطر جالس في الصحابة هذا نوقف في سنة إن طبعا تي وارون عيد في هايد وحنا من نوقف في سنة إنه عيد إن عيد الفطر ده هيد مركز رمضان بحذي مركز حنا مطلقنا inaan ciida ka faa'iideysano inta askartu fasax tahay si aanu Chinese-ka aan u dayicin oo aan ugu guuleysano oo ay nagu fududaato